Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhegeystayaal kusoo dhawaada Somali Motivation Podcast. Dhammaan barnaamijyada halkan ka baxa sida aad la socotaan waxay ku qotamaan oo ka hadlaan arrimaha bulshada, guusha iyo dhiirigelinta iyo nolosha wanaagsan. Sidoo kale wareysiyo aan ka qaadno dadka role modeliska ah amba ay hiigsadaan dhalinyaradu. Sidaas la mid ah waxaan kaga hadli doonaa arrimaha bulshada mararka qaar ceebta ka ah dhexdeeda, sida inuu qofka ku dhaco xanuunada maskaxda saameeya ee ay ka mid yihiin depressionka, isku buuqa amba bacda kolba qof sida u yaqaano, stresska, anxiety-ga iyo kuwa lamid ah ee qof walba haleela una dhiga hoos wax soo saarkiisa iyo inuu qofku goolkiisa gaaro iyo inuu arrimaha bulshada si talmoon uga qayb qaato isla markaana bedela dabeecadihiisa iyo shakhsiyadiisaba oo aan ka wareysan doono dad ehel u ah mowduucan. Haddaba maanta waxaan wareystay Khalid. Waa kuma Khalid? Wareysiga bilowgiisa ayaad kaga bogan kartaa. Sababta aan u wareystay Khalid waxa weeye waxa uu role model u yahay dhalinyaro badan, khaasatan inta jecel wax qorista, wax akhriska, fahamka habdhiska iyo isticmaalka luqadaha, gaar ahaan luqadda hooyo ee Soomaaliga, qoraalka iyo sheeko curinta. Kusoo dhawaada wareysigii Khalid iyo anigana dhexmaray. Khalid, waan ku salaamay, waanan ka mahad celinayaa waqtigaaga maanta. Inta ina dhegeysanaysan ku aqoonin waa kuma ayaad oran lahayd Khalid Jaamac Axmed? Bismillaahi raxmaani raxiim, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam. Magacaygu waa Khalid Jaamac Qodax. Waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa. Waxaan wax bartay isla magaalada Hargeysa oo dugsigii hoose dhexe aan kaga baxay dugsiga hoose dhexe Beeracay. dugsigii sarena waxaan isna ka baxay dugsiga sare ee Faarax Xumaar. Isla magaalada Hargeysa waxaan ka galay jaamacadda Hargeysa oo aan ka qalin jabiyay qaybta maamulka iyo maareynta, iyadoo hadna aan mar labaad ka qaatay postgraduate ah xalinta khilaafaadka. Imika waxa aan soo guuray wadankan Ingiriiska oo aan deganayn muddo ah. Intii aan joogay wadanka waxaan kasoo shaqeeyay hay'ado iyo community fara badan. Imika inta aan joogay Ingiriiska iyadana waxa aan bartaa oo aan arday ka ahay inaan sii kobciyo barashadeedii maamulka iyo maareynta iyo hogaaminta. Waxa aan ka shaqeeyaa company caan oo la yiraahdo Ashley Community Housing oo badanka la shaqeeya dadka qaxoontiyada ah. Halkaas oo ka ahay housing officer. Ururkaasi ama company-gaasi wuxuu caawiyaa dadka qaxoontiga ee wadankan oo ka caawiyo sidii ay u degi lahaayeen guryo u degi lahaayeen ama ay runtii u baran lahaayeen luqadda wadankan Ingiriiska, sidii ay bulshada u dhexgeli lahaayeen. waxyaabahaas oo dhan baanu ka caawinaa. Marka Khalid waa ninkaas dhinaca kale in muddo ku soo jiray bahda qoraalka iyo akhriska oo aan ka mid noqday welibana gudoomiye ku-xigeen ka noqday ururka qorayaasha Somaliland. waxaan qoray 2 buug. waxaan imika aan ahay chief editor-ka ama tifitiraha guud ee wargeys ka soo baxa wadankan Ingiriiska oo la yiraahdo Kobciye. waxaan ka mid ahay bahda akhriska iyo qoraalka oo xiisaysa wax qorta, wax naaqishta, wax korfaysa. marka runtii Khalid waa ninkaasi. waxaanan aad ugu mahadsan, aad ugu runtii ugu faraxsanahay inaan barnaamijkan aan ka mid noqdo dadkii lagu soo casuumay ee runtii wuxuun ama talaha noqoto ama tusaalaha noqotay wuxuun ku beerin doonaa anigoo runtii uga mahadnaqaya istaahil oo runtii dadaal badan gelisay barnaamijkan iyo kuwii ka horeeyayba oo aan aaminsanahay dad fara badan ay ka faa'iidi doonaan. aad baad u mahadsan tahay mar labaad iyo mar saddexaad. dheerayn maayo hadalka su-aasha koowaad, laakiin waxaan kusoo koobayaa un inahaasi. waad mahadsan tahay Khalid, aad baan kaaga mahad celinayaa. barnaamijka waxaa tahay qofka ugu horeeyaan wareysigiisa ku bilaabo Somali Motivation Podcast. sababtoon aan ku dooran inaan ku bilaabana waxa weeyaan marka noqoto sidaad profilkaaga u sheegtay in wax qorista iyo luqadda iyo waxyaalo fara badan oo aad ka shaqeysaa maad gacan ku leedahay dhalinyaro fara badan oo tahay role model. saad darteed baan ugu faraxsan inaad noqoto qofkii ugu horeeyay barnaamijkan ku soo casuuno. journalka Kobciye sidaan fahamsanay waa journalkii ugu horeeyay ee af Soomaali ah ee caruurtu leedahay ee ka soo baxa wadanka Ingiriiska. sidee ayay kuugu dhalatay fikradda journalka Kobciye
magacaasa sidaad ku xulatay? wargeyska kobciye waa wargeys kasoo baxa wadankan ingiriiska gaar ahaan magaalada Bristol. waa wargeyskii ugu horeeyay ee kusoo baxa luqadda af Soomaaliga iyo af Ingiriisiga inta ogaalkaya wadankan ingiriiska kasoo baxa. way jiraan wargeysyo kale oo soo baxa, laakiin waxaa laga yaabaa in wargeysyadaasi arrimaha ay ka hadlayaan iyo mawduucyada ka hadlayaan ku kala duwan yihiin iyo ka uu kobciye ka hadlo. dhanka kale wargeyskani runtii waa wargeys labada luqadood isku turjumaya, Soomaali iyo Ingiriisi. ujeedooyinka intaanan u gelin magaca kobciye runtii oo dad badan soo weydiiyeen iyo meelo badanna laga soo weydiiyey sida uu magacu xambaarsan yahay, xulashada magaca iyo ujeedooyinka magacu uu xambaarsan yahay waxaa laga dheehan karaa in uu kobcinayo ama garaadka iyo dhalinta iyo caruurta ku kortay qurbaha, oo runtii u baahan in meelo fara badan laga taageero hadday tahay dhinaca dhaqanka, afka, diinta iyo runtii sidii ay u baran lahaayeen wadankii ay kasoo jeedeenba. marka arrimahaasa runtii gogoldhig u ah ama ubuucda ugu weyn ee wargeysku uu gudbiyey ay kamid tahay. marka laba luqadood buu kasoo baxaa, Soomaali iyo Ingiriisi. 4 bilood mar buu soo baxaa, magaalada Bristol buu kasoo baxaa. runtii waxaa sharaf noo ah in cadadkii 3aad uu soo baxay bishan aynu ku jirno 1deedii, taasi oo ka dhigaysa in sidii loogu talagalay wargeysku uu socdo, sidii qorshuhu ahaa uu socdo, iyada oo dad fara badan oo gaadhay hadday yihiin dadka reer Ingiriis ama arda Yurub ama Africa ku nool ama wadankeeni ku nool, in runtii ay wargeysku markii ay heleen ay soo dhaweeyaan macluumaadku uu xambaarsan yahay oo kala duwan oo ka waramaya kobcinta iyo garaadka dhalintan ama caruurta qurbaha ku dhalatay sidii loo bari lahaa afkooda, dhaqankooda iyo diintoodaba. oo runtii waalidiintu doorka ugu muhiimsan ay ka qaataan sidii ay caruurtaasi ugu akhrin lahaayeen ama ugu dhiirigelin lahaayeen inay bartaan xikmadda iyo farshaxnimada ku jirta afka iyo dhaqankooda. waayo cilmi baadhisyo fara badan oo la sameeyey waxay sheegayaan ilmaha yari luqadda af Soomaali, yacni luqadda hooyo ee afka hooyadiis, yacni inta uu ka yaqaanuun buu ka baran karaa luqadaha kale. marka inta uu ku dadaalo luqadda af Soomaaliga ayuunbuu luqadaha kale ama maskaxdiisu garaadkiisu ka kordhi karaa. marka waa wargeys runtii caawiya waalidka, waa wargeys caawiya dhalinta, waa wargeys caawiya caruurta. Khalid, waan kuga hambalyeynayaa ka waalid ahaan qurbaha ku nool, yacni ilmaha amba caruurta qurbaha ku dhalatay way adag tahay inayn helo buug amba sheeko xariiro amba wax macluumaad caruureed oo hufan oo af Soomaali ku qoran oo loo akhriyo. waxaana rajaynayaa aan aaminsanahay inaynu kaalin weyn oo runtii banaanayd uu buuxinayo. mar labaad iyo mar saddexaad ba adiga iyo tiimka kobciye intaba waan idin hambalyeynaya. sidee ayay u heli karaan waalidku? ma waxaa lagu helayaa electronic oo qofku wuxuu ka akhrin karaa amba ka iibsan karaa computerka dhexdiisa, mise waxaa jira isagoo copy jildi ah oo adag oo la iibsan karo? runtii waa su-aal fiican. kobciye runtii wuxuu xooga saaraa marka koowaad inuu ku daawacmo isaga oo ah hardcopy. marka hardcopyga ama isagoo jildiga adaga la daawacay wuxuu gaadhaa runtii sidaan sheegay dee dhammaan Ingiriiska iyo Yurub iyo Afrikaba. qorshaha runtii waxyaabaha imika ku jira ee aan xooga saarayno waxaa kamid ah sidii maadaama talooyin fara badan dad badan ay soo jeediyeen ay kamid ahayd in electronic laga dhigo, in aanu runtii ku dadaalayno in cadadka soo socda uu yacnihii isaga iyo cadadkaasi ay soo wada bixi doonaan in website loo sameeyo. websitekaasi markaa dadku ay runtii ka dhex akhrisan karaan cadadyadii hore oo dhan iyo kuwa cusubba, si dad fara badan oo runtii daafaha dunida kala jooga oo ay fursad u helaan inay akhriyaan macluumaadka iyo nuxurka waxbarsan yahay warsiduhu kala degi karo oo uu ka heli ka runtii taasina waa mid runtii ku jirta. waxaa kale oo runtii fahmay iyada oo qorshaha sanadkan aan ku jirin in iyada oo ay yacni abishna in la helo oo isagoo la helo maxay hayday wargeysku. taasina waxay kamid tahay un long term yacni dee qorshayaashayda mustaqbalka ay dee dhow runtii laga midho dhalin doono. waan gartay. halka haddii aan kaga baxno magasiinka kobciye
oo aan mar labaad iyo mar saddexaad baan idin hambalyeynayo adiga iyo tiimkaba. adig khaalid ahaan haddii aan su-aal ku weydiiyo, inuu qofku waqtigiisa qorsheeyo inta badan waxaa la yidhahdaa waxay ka qeyb qaadataa in qofku howlqabadkiisa amba inuu guul ka gaaro waxa uu gacanta ku hayo, qorshaha waqtiga fog iyo qorshaha howl maalimeedka maalin kasta ah. khaalid ahaan sideebaad u qorsheysaa waqtigaaga maadaama shaqo caadi hayso, shaqo kalood bulshada u haysota maxaan ku dhahdaa kobciye iyo qoraalka iyo afka horumarinta afka hooyo labadaba aad haysid? waa hawl aada u fara badan oo tii bulshada iyo tii naftaadaabaad ugu daneynaysay ah. sideebaad waqtigaaga u qorsheysaa eed ugu guuleysataa inaad howlahaasoo dhan dhamaystirto? qorsheyntu se hawl yani rool intee leeg bay ka qaadataa inaad gaadho howlahaaga? runtii de waa su-aal siyaabo kala duwan looga jawaabi karo oo aniga runtii aad muhiim waa qofku haddii aanu noloshiisa waxyaabo fara badan qorsheynin ama aanu qorsheynin qaab dhismeedku noloshiisu ay ku dhisan tahay, wax badan oo runtii damac ama maskaxda ku hayay runtii kama maran dhalin karo. anigoo aaba ah qurbaha jooga oo haddana shaqeeya, in wax barta, in haddana noloshaada aada maareyso oo aada u maareyso waqti aada runtii qoyskaaga la qaadato, waqti aada asxaabtaada la qaadato, waqti aada shaqada runtii yacni dadka wada shaqeysaan la qaadato, waqti aada cibaadeysato, waqti aada wax akhrisato, waqti aada wax barato, waqti aada ka fikirto qorshayaasha mustaqbalka adduunka. runtii waxay u baahan tahay waxyaabahaas oo dhan markaad ku soo xooriso inaad waqtigaaga aada haysato oo kooban, runtii si maangal ah oo runtii caqliyad ku dhisan aada u qorsheyso, oo waqtigaad wax baranayso iyo waqtigaad cibaadeysanaysa iyo waqtigaad shaqeynaysa iyo waqtigaad qoyskaaga la qaadanaysaaba ay runtii ku kala qalnaadaan oo ay noqdaan midna mid aanu runtii ku khaldamin oo aanu kaa qaadan. marka runtii bini aadamku walow qof kastaaba 100% siduu wax u qorsheeyay aanay u dhicin, sidaa oo ay tahay kama maarmayso qorshahaasi oo aad u kala qaadayso in runtii aad mudnaanta kala siinayso sida howluhu kala mudan yihiin. runtii guul ama ujeedadaada ama hadafkaaga marnaba gaari maysid haddii aan qorshayaashaadu aanay ku dhisnayn kuwa maangalo runtii baritaaga runtii dee inaad ka madha dhaliso guushaasi. marka qorshuhu dee wuxuu maadaama dee waalid aad tahay, waalid anu aan ahay, qurbo joogo, waxbarto, shaqeeyo, runtii waxay u baahan tahay in waxyaabahaasoo dhan de sidii loo midayn lahaa. marka waxyaabahaasoo dhani waxay u baahan yihiin dee qorshahaasina wuxuu ku dhisan yahay inaad intaad fadhiisato dee waqti aad noloshaada aad kala qeybiso oo runtii aad kala habayso. bini aadamkuna runtii waxyaaba fara badan oonay u haysan qorshayaal aanay u haysan oo noloshooda maalin kasta ay sameeyaan baa jira. marka waxaad arkaysaa qof wiigii maalin kubadda ciyaara ama wiigii jimicsiga taga oo ka odhanaya qorshe ma lihi, laakiin de waxay ka xaqiiqdu waxa weeyaan inuu noloshiisu qeyb ka mid a ay qorsheysan tahay oo waqti ay u qorsheysan tahay inuu waxaa sameeyo. marka qorshayaashu de waxay leeyihiin inaad priority kala siiso oo runtii mudnaan bay kala leeyihiin. marka waxyaabahaasa dee runtii keenaya in micno badan ay kuu sameynayso noloshaada inaad wax badan qorsheyso. waqti aad qorsheyso aad wargeyska aad akhrido, waqti wargeysada kale aad akhrido, waqti aad wargeyska qorto, waqti aad wargeyska editgareyso, waqti aad yacnihii dadka kale ee ehelka ama asxaabta ama dadka kaleba aad caawiso oo runtii qoraalka iyo afka oo runtii dad fara badan oo arrimaha runtii aan ka caawiya inaa jirto. marka eriyooyinkaasoo badan baa u baahan dee in waqtigaaga aad qorsheyso. khaalidow waxaad sheegtay howlo aada u fara badan, hadday tahay waxbarashadii, hadday tahay jimicsigii, hadday tahay cibaadadii, hadday tahay howlihii faamilka, hadday tahay howlaad bulshada u haysay, waxaasoo dhan inuu waqtigaaga aad macnaha balaan garaysaan baad qorsheyso oo aad sameyso. howlaha faraha badan ee howl maalimeedka ah ama sideedaba marka ay howli ku taalo guud ahaan nolosha, khaalid maxaa motivate galay? khaalid maxaa dhiirigeliya oo siiya macnaha maxaa ku riixa? runtii de waa su-aal dhinac u baahan de in fikir iyo waqti badan la geliyo ah, laakiin haddana haddaan si kooban uga jawaabo waxyaabaha aniga markastay
motivate gareeya ama i dhiirigeliya ama noloshayda runtii motivationka ugu badan siiya waxa weeyaan sidii dee noloshu waa waqti yaroo koobane inta aad nooshahay dunidana ama dadkan aad la nooshahay aad yacnihii saameynun aada ugu yeelan lahayd ama saameynun runtii aad wax saameynun aad ka tegi lahayd marka in aada noqoto qof runtii mujtamaca dee karaamiyo sharaf iyo wanaag ku dhexle jecel in uu runtii dhiirigeliyo dadka oo wax la qabto waxyaabahaas o dhan waxay kugu dhiirigelinayaan markasta dee inaad joogtayso oo aada dheeli tirto oo aada runtii dee muujiso hal adeyg iyo farshaxanimo runtii sidaad hawlaha ugu qaban lahayd ama hawlaha yani uga madha dhalin lahayd waxyaabahaas o dhan baa ku motivate garaynaya markaad eegto dee noloshaad haysato markaad aragto waayahaad ku jirto waxyaabahaas o dhan dee waa alxamdulilah qofku waxyaabaha dee ugu muhiimsan ee waxaa basic waa kamid a caafimaadka iyo noloshiisa iyo dee cidda ku xeeranba markaad eegto waxyaabahaas o dhan waxyaaba motivation qofka bini aadamkaa siinay bay kamid yihiin. waad mahadsan tahay. kelmadda guul inta badan qofku marka qofkaas waa qof guuleystay amba guul waxa laga yaabaa in dadka maskaxdooda kusoo dhacdo wax weyn. kelmadda guul amba guusha haddii aad sharaxdo Khaalid ahaan adiga shaqsiyan kelmaddaas micno nooceeya ayay ku samaysaa? guushu way wejiye badan tahay runtii qofba micno bay u samaysaa. qofku hadduu hal tallaabo qaado waa guul noloshiisa kamid a oo uu hore u qaado. haddii runtii uu wax cusub noloshiisa uu sameeyo waa guul. haddii waa qof uu caawiyo waa guul. haddii uu runtii wax wanaaga uu sameeyo waa guul. marka waxay ku xidhan tahay runtii ama aniga shaksiyan guushu ay tahay in mar kasta oo aan wax ku hamiyo runtii wixii aan ku hamiyey haddii aan ka midha dhaliyo runtii inay tahay hawl guul yacnihii dee si u dhacday maxay ahayday ama dadaalkii ama hawshaasi ay keentay. xigmad ba ahayd waxaan ka xasuustaa beyt ku jiray gabaygii hadraawiye inta maanku gaajaysan yahay guuli waa weli. marka guushu inaanay noqonin wax mar keliyaata laakiin dee ay noqoto wax sustainable ama joogtaysan oo runtii noloshaada aad markasta ku dabaqdo hadday tahay ta qoyskaaga hadday tahay ta shaqsigaaga hadday tahay ta caruurtaada hadday tahay ta bulshadaad la nooshahay hadday tahay ta yacnihii dadka kale aad la shaqayso runtii mar kasta oo aad noloshaada adigu wanaag samayso waxaad samaynaysaa waa guul. mar kasta oo aad cid caawiso waa guul. marka guushu dee runtii aniga waxay iiga dhigan tahay sidii aan u joogtayn lahaa ama uga madha dhalin lahaa ama aan u hal abuuri lahaa wax cusub oo runtii anigana saameyn ugu yeesho dadka kalena runtii saameyn ku yeesho oo ay wax faa'iidaan. Khaalid aad iyo aad baad u mahadsan tahay. wareysigeeni waa gabagabo. hal su-aal oo keliya taa ayaan rabay inaan kusoo gabagabeeyan ku weydiiyo laakiin su-aasha ka hor intaanan ku weydiin ma jirta su-aashii weydiinin horta waa kaaga mahadnaqayaa barnaamij aad u qurux badan oo dee qiimo badan weeyaan wareysiyo badan oo bixiyey iyo meelo fara badan laakiin uu iga duwan yahay wareysigan runtii oo wuxuu ka hadlayaa run waxyaaba nolosha bini aadamka taabanaya. waan arkay xalqado fara badan oo adigu hore u baahisay anigoo aaminsan inay wuxuun laga faa'iidi doono qof uun ka faa'iidi doona ama qof ka faa'iidi doonaan. haddana su-aal baan markasta isweydiinaya oo ahayd istaahil suxufinimada runtii inagu aynu naqaane hadday tahay tii waddankeenii iyo tii noloshii aynu kusoo barbaarnayba waxay ahayd un in warun la sameeyo oo qofka suxufigii uu warun sameeyo ama qofka yacni dad doonaya inu macluumaad la wadaaga uu runtii aanu arrimaha bulshada taabanaya runtii aanu xoogga saarin. iminka haddaad eegto waddamada reer galbeedka dad fara badan oo horumaray oo success nolosha ka sameeyey oo suxufiyiin maaha laakiin haddana mihnaday ku jiraan yacnihii kama marna saxaafadii kama maqnaa. marka iminka dee dad fara badan oo caano showyo caanala oo hadday tahay dumar iyo ragba oo dee lacagaha ay ka sameeyaan dee balaayin ay yihiin haddana suxufiyiin maaha laakiin waa dad haddana sameeya mihnad
runtii macluumaad ay dadka ku gaadhsiin karaan, yacni isticmaalaya un saxaafadda isticmaalaya. marka adiga runtii aad baan kaaga mahadnaqayaa in qayb ka mid a ama diir ka mid a dee diirarkaasi runtii aad adiguna jebiso oo runtii ay ka mid noqoto waxyaabaha runtii dee aad jeceshahay inaad ummadaada dee kula wadaagto, yacni fariimahaaga iyo de waxqabadkaaga. waayo qof si unbuu wax ku gudbiya, qof qoraal ku gudbiya, qof hadal ku gudbiya, qof muuqaal ku gudbiya. marka qaybtan aad ku gudbinaysaan runtii waxaan aaminsanahay inay wax badan ka tari doonto, ama dad fara badan ay ka faa'iidi doonaan. kula kaftame waxaan ku leeyahuun halkaa kasii wada sii joogtee, si guusha aynu uga sheekeynayno ay ka mid noqoto, yacni sii joogtaynta barnaamijkani. waan garta, aad iyo aad baa mahadsantahay. waan sii joogtaynayaa. su-aashaan soo waday ahayd inaan ku weydiiya ahayd su-aalaan adigu ku weydiinayo oo aan barnaamij kusoo gabagabeynayo, iyo su-aalaan ugu talagalay dhammaan dadka martida ii ah inaan gabagabada ka hor weydiiyo, oo ah wax su-aal ah aniga ma i weydiin lahayd? dabcan de waa tan kulahaa waxaan isweydiinayey sidee u joogtayn doontaa mustaqbalka. marka waad su-aashaydii talaan ka dhigay, oo dee runtii inaan kuli barnaamijka joogtee halkan kuodhan lahaa sideed u joogtayn lahayd baan kuli joogtee barnaamijka. marka dee taasaa jeclaan lahaa un aniga yani inaad joogtayso. anigana sharaf bay tahay runtii inaan noqdo dee qofkii koowaad ee barnaamijka runtii waraysiga runtii dee aad ka qaado. marka inahaasuma ugu muhiimsan. waad mahadsan tahay. waan ku faraxsan inaad tahay qofkii ugu horeeyey oo aan martidayda kow ka noqda aan ku wareysto Motivation Podcast. in badanna aad u tahay dhalinyaro fara badanna aad u tahay role model oo xiiseynaya luuqadda iyo qoritaanka iyo akhriska. su-aashaada taladaada waa qaatay, insha allah waanu joogtayn doonaa. haddii aan kaaga jawaabo su-aasha ah sideed u joogtaynaysaa, waxaan u malaynayaa qofku marka uu helo wax uu jecel yahay oo aan shaqo ahayn laakiin uu jecel yahay inuu qabto, oo uu doonayo asaga inuu dadka wax ku celiyo, oo wax isaga kasoo go-ay oo rabo uu xiiseynayo ku faraxsan yahay, inuu joogtayo way fudud tahay. marka yacni inaan ka shaqeynta waxyaabaha bulshada, caafimaadka maskaxda, dhiirigelinta, iyo inta badan aynu ka xishoono inaan ka hadalo hadduu qofku debreshanayo, amba hadduu qofku anxiety qabo, amba hadduu qofku stress hayo, oo la odhanaya haddaad amba wax intuu qabto qofku uu guuldareysto, amba aanad haddaad gasho mediaha af soomaaliya ku hadla aanad ka helahayn wax naftaada quudinaya. badan waxyaabahaasoo dhami kuma jiraan journalismka soomaaligu isticmaalo. marka waxaan rajeynaya aniga iyo in kaloo ila mida inay buuxiyaan. taasaana keenaysa insha allah inaan sii joogtayo sii wado. khaalid, waxaan ku weydiinayaa su-aashii ugu dambeysan kusoo gabagabeynayna wareysigeena. dhalinyarada uu khaalid u yahay role modelka ee adiga ku eegta, ku hiigsada, fariin nooceeyaad u diri lahayd, maxaad ku odhan lahayd? fariintu way iska caddahay oo dee inuu qofku wuxuu jecel yahay ka midho dhaliyo, joogteeyo siduu uga midho dhalin lahaa, meel ku koobnaado qofkii oonu dee isku furin furimo ama wadooyin fara badan. wuxuu jecel yahay markasta uu cilmi baarid ku sameeyo oo research gareeyo, kana midho dhaliyo waxa uu jecel yahay siduu dadka ula wadaagi lahaa ama runtii hore usii horumarin lahaa. inay akhriska iyo badiyaan maxay ahayday, inay la saaxiibaan runtii dadka ehlu caqliga ama kartida iyo sharafta leh, ay joogteeyaan sidii ay mar kasta wax u baran lahaayeen oo aanay waxbarashada ka hadhin. inahaas unbaa ugu muhiimsan dee runtii dhalinyarta inaan ku dhiirigeliyo oo aan uga faa'iideeyo barnaamijka. aad iyo aad baan kuugu mahad celinaya adiga iyo dhammaan tiimka Kobciya Magazine. aad ayaad ugu mahadsantihiin waqtigiina qaaliga ah. dhegeystayaal, haddii aad su-aal qabto ama uu jiro mawduucaad jeceshay inaan ka hadalno, fadlan noogu soo gudbi emailka somalimotivationpodcast@gmail.com ama dhammaan baraha social mediahayaga. aad iyo aad ayaan idin salaamaya. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. isma qaldam.